السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta Isniin aan idin soo gudbinayno. Taariikhdu waa 8 bisha December sanadka 2025. Haddaba qodobada barnaamijka subaxnimo ee saaka aan idinku soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona Turkiga iyo Qatar oo sheegay habka ay tahay in hubka looga dhigi karo Xamaas markii uu soo baxay hindisahaas Israa'iil oo qaylisay Xamaas oo iyana ka jawaabtay. Haddaba hab noocee ah ayay soo gudbiyeen Qatar iyo Turkiga. haddaba maxay Israa'iil u qaylinaysaa sootay doonaysa in hubka laga dhigo Xamaas maxay ka tiri. haddaba tafaasiil guud oo ku saabsan arrinkaas iyo wixii warbaahintu ay saaki ka qorayaan ayaanu idinla wadaageynaa. dad ka badan 100 maxbuus Falastiiniyiin ayaa xabsiyada Israa'iil ku dhintay tan iyo markii uu xilka wasiirka amniga gudaha uu la wareegay Itmar bin Gavir. haddaba ninkan ma isaga ka mas'uula dilka dadkaas maadaama uu dhowr jeer hore isagu sheegay in inta la xirayo ay ahayd in la dilo. haddaba tafaasiil iyo waxooga ku saabsan arrinka ayaynu yana barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. qeybaha dambana waxaan idinku hayaa khilaafkii u dhaxeeyay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil iyo abaanduulaha ciidanka oo mar kale soo laabtay. haddaba markan maxaa la isku hayaa tafaasiil ayaan yana idinkaga soo gudbin doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya saakay aynu ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road oo aan ka fogeyn safaaradda dawladda China ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Emara Luxury Homes Limited waxay ku diyaarinayaan 2 dhismo oo dhaadheer oo caan ka ah magaalada Nairobi dadkuna ay u aayayaan mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba. waa Parkland iyo halka lagu magacaabo amaba agagaarka waa xagee waa City Park Drive 6th Avenue. dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkadaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi. waxaa hagayo hogaaminaya waa sayidka Soomaaliyeed, waa sayidka geeska Afrika ee yaan la moogaan guud ahaanba maamulka guud ee shirkadda la jeclaystay Emara Luxury Homes Limited. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay saakay oo Isniina. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa arrin si weyn loo falanqaynayo. waxay u badan tahay in loo gudbi doono sanadka cusub markuu dhasho wejiga labaad ee wadahadallada heshiiska Gaza. bishan dabayaaqadeeda Washington waxaa ku ballansan Netanyahu iyo Donald Trump. warar horudhaca uu soo saaray wuxuu sheegay inuu ninkaa kala hadli doono u gudbidda wareegga labaad. haddaba wareegga labaad in loo gudbo
israa'iil maxay uga cagajiidaysaa dhowr arrimood. israa'iil waxaa laga doonayaa ciidankeeda inay meesha kala baxdo, gargaarka iyo wixii lagu heshiiyo dhan ay fasaxdo, xabad joojintan ay mar walba ku xadgudbaysana ay meel iska dhigto. waxaa loo gudbayaa qaybta labaad. macnaheedu wuxuu yahay diitaliskii saxda ahaa la galayaa. heshiiska hadda waxay ahayd keliya xabad joojin iyo gargaarka in la geliyo, ciidanka israa'iilna ay kasoo sikadaan meelihii ay horu joogeen. hadda marka waxba ma samayso. ciidankeeda markuu rabo gaza way gashaa, way kasoo noqotaa. duqayntu waa joogto, gargaarku waxay rabtee fasaxdaa, wixii kale way diidaa. intaasaas marka wejiga labaad, israa'iil waxay doonaysaa in laga sheekaysto hubka dhigis in lagu sameeyo xamaas. ciidanka iman doona inay shaqadooda koowaad noqoto xamaas in hubka laga dhigo, saaxada siyaasadana laga saaro, si meesha ay baylaha ugu noqoto iyada. hadda yaa kaloo isku haysta xamaas iyada. haddii xamaas meesha ka baxdo iyo muqaawamada kale, dadka shacabkaa dee sidai doontay ka yeelaysaa. saasay rabaan. qatar iyo turkiga oo damaanad ka ahaa hawshan, oo xamaas dhankeeda damaanad ka ahaa, ayaa iyagu marka qorshe cusub keenay. hubka la iska dhigaayo dhowr nooc ayuu noqon karaa. horta muddo 2 sano ah inaan hubka dhigis iyo sheekadiisa iyo dib loo dhigo waa weyga kale ama wadada kale waa in hubkan loo dhiibaa falastiiniyiinta daanta galbeed iyo kuwa maamulka iyo waxa kan iyo loo dhiibo dad kaloo falastiiniyiina gacantooda la geliya. 2 midda saddexaad, ciidamada iman doona waa iyo oo turkiga iyo qayb ka yihiin in hubkaas ay makhaasiino ku kaydiyaan oo ayaga haayaan inta heshiiskan iyo dowlad falastiin laga dhisaayo. 3 arrin oo lasoo bandhigay, 3daba way diiday israa'iil. wahba qayliyeeb 2 sana ruuxaas nagala taga, falastiini kalea loo dhiibaa ahaa ma jirto, makhaasiinaa lagu kaydinaa ma jirto. say rabtiin waa la qaadaa hubka, annakaana loo dhiibaa. sheekadaasu marka sheeko shaqaynaysa maaha. nimankii xamaasa iyaguna war soo saaray sheekada. marka la yaabka laadituso horta marka hore wixii laga qoray telefishinka la yidhaahdo Sky News qaybtiisa af carabiga ayaa wuxuu sheegay in qatar iyo turkigu ay soo saareen qorshe cusub oo ku saabsan hubka xamaas iyo israa'iil oo ka digaysa in qorshahaasi lala qaato turkiga iyo qatar. joornaalka la yidhaahdo Yeddacood Axranood ee ka soo baxay israa'iil oo soo xiganaya mas-uuliyiin xukuumadda israa'iil ka tirsan ayaa saakay waxay sheegeen inay ka digayaan arrimaha la isla dhex marayo ee ku saabsan hubka dhigista xamaas, taasoo markaa la sheegay inay wadaan qatar iyo turkiga. waxaana qorshahaas ka mid ah in dhanka falastiiniyiinta loo wareejiyo hubka, ama in makhasiin lagu kaydiyo, ama in muddo 2 sano ah in howlahan intay ka dhammaanayaan ay sidaa ku socoto. israa'iil marka waa qaylis, waa diid. waxaasu ma jiraan, wax dhici kara ma aha. qatar iyo turkiguna maxay leeyihin masar iyo maraykanow annaga hindishaanaa wadnaa. hubka dhigistaan wareer badanay galeen. ciidanka xataa imaanaya hub ka dhig xamaas cid yeelaysa male. huba iyada oo bambooyin garaacaysa ka dhigi weysa, cidda ka dhigaysa yaa waa nin walba wuxuu isleeyahay marka dadka iyagaa tooda haysataa falastiiniyiin dhibaato kale ha ugu darin. sheekadaasu halkaasee marka hindisahaasu miisku saareen. Trump aa looga sii hordhacaa marka uu la kulmayo ninka la leeyahay dabayaaqada bisha Netanyahu markuu Washington tago. nimankaa marka miiska qorshahan soo saareen. annaga ka mas-uule sidaana nimankan hubka looga dhigi karaa. haddaba marka nimankii xamaas ahaa ayaa iyaguna saakay war soo saaray iyagoo ka falcelinaya sheekadan. haddaba mas-uul ka tirsan xarakada xamaas ayaa wuxuu sheegay dhankooda soo bandhigidan cusub ee xal loogu helayo hubka ay haysato xarakada xamaas ayuu ka hadlay ninkaas. haddaba wuxuu sheegay sida lagu daabacay Sky News, mas-uul sare oo xamaas ka tirsan ayaa waxa uu sheegay
in xarakadu ay diyaar u tahay inay markaa arrintan ka hadlaan ama ay ogolaanayaan in hubkan meel lagu sii kaydiyo oo la hayo oo maaragtay inta heshiis iyo xasilooni taama laga helayo hubka makhasiin lagu kaydiyo. haddaba waxay sheegeen in arrintaasu ay soo hindiseen turkiga iyo qatar. xamaas aysan wax dhiba u arkin oo ay markaa u aragto xal muhiim ah oo ay hubkooda ku dhigi karaan. marka ma ujeedaa meeshan marka waxaa ka socda isgaadgaad weyn. israa'iil waxay rabtaa dadkan inay hubka ka dhigato oo maaragtay gacmo laadlaad dadaan hub wadan oo gacmo laadlaado iska socdo shacab caadi mid ay xerto mid ay disho ka dhigto. turki iyo qatar iyana waxay leeyihiin dadkan haddii hubka laga dhigo israa'iil inay dowlad falastiin ogolaatay muhiimadu tahay. hadday shar ogolaan dadkan waxa waaye hubka looga dhigaya. marka waa meesha waxaa socda tactica socota waa la isgaadayaa. dadka masaakiinta haddii hubka laga dhigo maxaa yaala hadhow turki iyo qatar ayaa noo gacan qabtay leeyihin. turki iyo qatar marka hadda waxay leeyihiin nimankan ilaa israa'iil ay ka aqbalayso dowlad in la dhiso oo maamul falastiiniyiintu ay yeeshaan la dhisayo hubkan sidaasuu noqon karaa xalkiis. nimankan in hadda laga qaado meel la dhigo siaysan dadka ugu dhibaatayn, in maaragtay maamulka falastiiniyiinta loo dhiibo, iyo in muddo 2 sano ah aan arrimahan hubkay laga hadlin balse arrimahan kale laga hadlo. marka sheekadaas halkaasay maraysaa. waa sheeko cajiiba runtii. sheeko kale oo iyaduna ku saabsan warbixinada maanta waxaa leeyahay dad ka badan falastiiniyiinta 100 qof ayaa xabsiyada israa'iil lagu dilay, way ku dhinteen. weliba waxaa leeyahay markii uu xilka qabtay ninkan la leeyahay bin ghafiir oo wasiirka amniga laga dhigay oo xabsiyada iyo waxaan iyo amnigooda waxaan isaga ay hoos yimaadaan ayuu dadkaa dhinteen. sababta marka la isugu xirayo maxay tahay? waxaa la isugu xirayaa ninkan isagaa hadda ka hor wuxuu yidhi dadkan intaan xiri lahayn inaan dilnaana loo qaatay. daaweyntooda iyo cuntadooda iyo waxooda iyo maxbuus waayo ilaalintiisa iyo waqtiga nagala qaadaysaa. ninkan markaa isagaa saas yidhi. marka hadda maxaa muuqata? weligeed ma dhicin inta uu ninkan joogay intaasoo qof in xabsiyada lagu dilo oo ay ku dhintaan. waxay aaminsan falastiiniyiinta in la dilay. haddaba markaan idin tuso telefishinka aljaziira wuxuu leeyahay waxaa dhintay 110 falastiiniyiin ah. waxay ku dhinteen xabsiyada gumaystaha tan iyo markii uu xukunka qabtay ninka la yidhaha bin ghafiir oo laga dhigay wasiirka amniga qaranka ee israa'iil. marka laga dhigay 110 qof dadaa kuu xisaabinayo waxaan maalinka ay baatay waa lagu xisaabinaa. ninkan marka waxaa looga shakisan yahay inuu ku lug leeyahay dadka in la dilay. falastiiniyiintu waxaa leeyahay waa siday tay leeyihin ninkan isagaa dilay dadkan sababtoo ah isagaaba afkiisa ka yidhi. marka sheekadaas waa iyaduna wararka cusub ay ka mid tahay. qatar xayeysiisa kadib sheeko kale oo ku saabsan dagaal hor leh oo mar kale ka dhex qarxay wasiirka gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidanka israa'iil. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriga online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casriga online ah. maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan horu gaadh. waxay faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markasu daaru taqwa. shirkadda dhismaha guryaha ee qibla homes. shirkadda qibla homes waxay mashaariic ka wadaa nairobi, south sea iyo mombasa, niyali. shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex, 4 bedrooms duplex, 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedroom, 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah. guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha. qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo turkish style ah. guri kastana waxa uu leeyahay masaajid, madaraso, swimming pool iyo gym, playground, meelaha lagu caweeyo ama sitting area, wiishashkii, motor automatic ah, ceelbiyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran. shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood ah oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyey. wixii faahfaahin intaa dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali
adigoo kala xiriiraya telefoonnada iyo emailka shaashadda kaaga muuqda. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo. maanta waa isniin, barnaamijkuna waa kii ugu horreeyey qaybihii ugu dambeeyey. marka barnaamijkan ayaynu maraynaa. qaybtan marka waxaynu kaga hadlaynaa wasiirka gaashaandhigga iyo ninkan abaanduulaha ah waybaysa necab yihiin sidooda. ilaahay baa isku diray, mar walba waa isku dhacaan. waataan halkan kasoo sheegi jiray mar netanyahu soor kala dhex galo iyo mar walba waa isku dhegayn. netanyahuna horaan waxaa idinkugu sheegay ma kala saaraayo, ninna inta bedelo kan kale ma bedelaayo. dadka dhan waxay rabaan inuu madaxa intay isla galaan asaga u yimaadaanu rabaa inuu asaga xalliyo. dadka wax xukuma oo madaxda ah siyaasaadka mararka qaar ay ku dhaqmaanay ka mid tahay. saaxiibadooda ayagaa xataa isku diraayo hadday rabaan. isaga marka mar walba in loo yimaado rabaa ka odayay, adiga waad gadan tahay, adiga saanaata waa wuxuu isagu ka shaqeeyay haddii la rabo. marka aan idintu soo wararkii ugu dambeeyey telefishinka aljaziira waxay leeyahay warbaahinta israa'iil saaka mar kale waxay sheegayaan in arrintaa u dhaxaysa Katz iyo Zamir ay mar kale cirka gashay. kanaalka 13 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegay xaaladda u dhaxaysa wasiirka difaaca Israa'iil Katz iyo abaanduulaha ciidanka ninka la yiraahdo Zamir inay markaa ka sii dartay oo mar kale oo cusub ay xaaladoodu ka dhex qaraxday. haddaba arrintan ayaa waxaa lagu sheegay inay dhibaato kale horle kusii noqonayso ciidamada oo markii horeba dhibaatooyin badan ay iska haysteen. ciidanka oo markii horeba tacbaan iska ahaa oo iska rafaadsanaa oo wax dhintay, wax waashay, wax isdilaya maalin kasta ayaa haddana xiisadan u dhaxaysa way kasii daraysaa le. marka xaalku halkaasuu maraa. wararkaas ayaa ugu waaweynaa ee soo kordhay asxaabay intii aynu kala maqnayn. barnaamijkaygii subaxnimo ee saakay waa naga intaa. fakar iyo aragti bal adinkuna waxaan idinla tahay soo qora in hubka laga dhigo xamaas sidee idinla tahay, qaabkaysa looga dhigi karaa? ma isleedihiin turkiga iyo qatar qaabkan ay sheegeen waa sida ugu macquulsan? haddaba adinkuna fakarkiina waa muhiim, noo soo qora. adduunka aan la soconno inta aan mar kale kulmayno. nabadgelyo.